la ii sheegay waa Mareykanka ka dhacday hooyo Mareykan ah runtii waxa uu maysan garanayeen ABC waxa uu maysan garanayeen waxay sameyn jirtay waxa ka sheekeynay marka wiilka ay dhashay oo markuu weynaado homework marka la soo siiyo way u yeeri jirtay agtiisa fadhiisin jirtay waxay dhigi jirtay ka shaqeey markuu ardayga macna wiilkeeda uu ka shaqeeyo buugi intay soo qaado warqadii ka jeexi jirtay waxay dhigi jirtay ma si fiican uma qorin waa gartay ardayga markuu waxa weyn wiilkeedu markuu wuxuu leeyahay wala hooyada caadi ma taa waxaad ka shaqeysay ay ka dardarayso macnaha si qaldan wax u sameysay haddana uu ku celin jiray almost waxa weyn 3 jeer 4 jeer markuu sameeyo ay ka jarjarto bay marka dambe waxay dhigi jirtay hadda si saxsan u sameysay macnaha ayadu ma garanayso wixii ardayga macnaha wiilkeedu uu qoray wiilka marka sheekana wuxuu leeyahay waxaan ogaaday hooyaday inaysan waxbana qorin waxna aqrin markii aan weynaaday oo aan kala gartay ii sheeg qofku wax aqrin karo iyo qofka waxba aqrin karin maalintii dambe marka waxaan ku iri hooyo maxaad saas u sameyn jirtay waxaan u sameyn jiray inaan ku dareensiiyo in aan waqti kula qaato macnaha waalidnimadii inaan waqti ku siiyo adiga laftiga waxa weeyaan aad dareentid inaan wixii kula homework kula shaqeynayo. I believe that, you know, in the near future we will accomplish championships and not just for the zone but in Africa, and hopefully near future we'll be world contenders, and inshallah. Inshallah one day we can return to our country in peace, but right now we're using basketball as a tool to unite us, and I believe sports is powerful. We could all unite from sports. Sports is not a bad thing, like Abdi Olo said. It could, like me, I use basketball as a way to stay out of trouble, a way to learn new brothers, and we could all, it's not about Kabila anymore, you know? It's about, I feel like I have to say that because Anaka, we're not from, like when we were little kids, we fled from Somalia and we came to Canada, so we don't know any of that Kabila stuff. And Anaka, it's more neighborhoods, what neighborhood you're from, but anyways, I'm saying, inshallah, we could all come back from Europe, Australia. I've seen some brothers from Australia. Inshallah, one day we could all come back to Somalia and be peaceful. Somalia came a long way from the bottom. None of us know a lot about the culture and the historic stuff and how we reunite us and we use basketball as a sport to bring us together. And we did something that we didn't do for 25 years, which was make a basketball team. And we started the foundation now. That's the cement, the bottom. Now we have to build on top of it. And when we do that, it's going to become stronger. So we need the 4 walls. And that's you guys to help us. And we're just asking you guys to help us out. So, you know, I've seen so much smiles during this trip. A lot of Somalian kids, moms, dads, they're all treating us like celebrities. And it's just basketball. I'm like saying, why is it basketball doing this? السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وناكسن داودياشا قيمها إيو قدرنت مدن لهم ميلو الباجوكتان كسو دوادا برنامجكي مدشا dhalinyarada oo idinkaga imanaya stuudiyaha magaalada Toronto ee telefishinka qaranka Soomaaliya waxaana barnaamijka halkan idinkaga soo gudbinaya anigoo ah Muxudiin Jaamaca. barnaamijkeena daawadayaal toddobaadkan waxa aynu ku soo qaadanaynaa arrimaha dhalinyarada oo aynu uga dhignay ciwaan madasha dhalinyarada fursadaha ay ku haystaan dalkan iyo sida ay uga faa'iideysan karaan. haddaba waxaa barnaamijkeena marti noogu ah Dr. Maxamed Saciid Taabid oo muddo dhow iyo 20 sano ah kamid ahaa madaxda jaaliyadda u adeegta khidmooyin ama runtii shaqooyin wax ku oolan u qabtay jaaliyadda Soomaaliyeed walina isagu ah madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada. Dr. Taabid marka ugu horeysa aad iyo aad baad u mahadsantahay inaad nagu soo booqato stuudiyaha iyaga magaalada Toronto ee telefishinka qaranka Soomaaliya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muxudiin waa ku salaamay adiga iyo bahda SNTV waana ku faraxsanahay in ka soo qayb galo aan marti kaaga noqdo barnaamijkaadan halkan madasha dhalinyarada. Dr. Taabid horta marka hore haddii aan qeexno da'da qofka dhalinyarada ah wadankan aan joogno dhalinyaro qofka gorma la oran karaa da'dee ka bilaabanaysa ayna leeyahay waa looga baxaya dhalinyaranimo. horta yaryar inta marxalada kala duwan weeyaan inta ay yar yihiin caruurtii ilaa 16 sano ka gaarayaan waa
inta ay waalidka ay daba joogaan caruurtaas ay maalin kasta la socdaan ilaa intaas day dhibaato ka qabsato guriga ay ku nool yihiin caruurtaas qolooyin kala wareegi kara ayaa jirta haddii dhibaato ay la kulmaan laakiin ilaa 16 marka 16 ilaa 29 hadba barnaamijyadu way kala duwan yihiin laakiin 16 ilaa 29 waa dhalinyarada waqtiga ay ku sugan yihiin 16 jir ilaa iyo 29 laga gaaro weeyaan ilaa 19 maxaa ilaa secondary ay baxayaan laakiin ilaa 29 laga gaaro hay-adaha wadankan badana maxay u ictiraafsan yihiin inay dhalinyaro weli ay sii yihiin laakiin da'da inta badan 18 jir qofka markuu waa markuu baaluqo qofka 18 halkan laga yiraahdo qofkani runtii waa qof mas'uuliyadiisa qaadi kara marka oo aanan dependent ku ahayn waalidkiisa صح way jirtaa waa mar mas'uuliyad oo qaadi karayo ay dadkan yiraahdaan adult ayuu gaaray oo da'weyn ayuu gaaray 18 haddii dambi oo galo asaga in wixii loo saarinaya hadduu ka yar yahayna waalidkii iyo inay dambiyada wax ku lahaanayaan laakiin dhalinyaro markii la yiraahdo da ahaan ilaa 29 laga gaaro still dhalinyarada ayaa lagu xisaabaa Dr. Thabit marka ugu horeysa intaan arrimaha dhalinyarada aynan u galin ma jirtaa tirakoob dadka jaaliyadda Soomaaliyeed markaad fiiriso dhalinyarada boqolkiiba meeqa la oran karaa dhalinyarada jaaliyadda Soomaalida horta nasiib wanaag maxaynu nahay annaga dadka ama jaaliyadda islaamka markii la yiraahdo xitaa loo fiiriyo ay u badan tahay Soomaali ahaan markii loo fiiriyo caruurteena haddii aad fiirisaa wadankan ku noolnahay Canadianka maxay haystaan ama mid iyo hal iyo bar ayaa average ka caruurta ay leeyihiin Soomaali iyo markii la fiiriyo dadka muslimiintana fertility-ga iyo daraadeed ma aragtaa maxay leeyihiin ilaa 5 ilaa 5 iyo bar ayaa ku soo aadaya reerkii oo ama Soomaali ahaadaan qolkan ahaadaan annaga Soomaali ahaan dadka ugu fertilized karaysan ayaa oo dhalashada caruurta dhalanaya dhalmada ayaynahay alxamdulillah muslimiintana way ku sii badanayaan jaaliyadana way ku sii bateen مثلا reerkii halkan isku guursaday waxa laga yaabaa inay average of 3 ilaa 4 caruur ay leeyihiin sida ugu badan wadankaana ma taqaanaa hal iyo bar haday gaaraan waa dadka ugu badan la yiraahdo family weyn way hadda 3 qofood atiin inta laakiin annaga Soomaali ilaa 5 6 7 ilaa in ka badan waan aragnay walxamdulillah waa midaan ku faanayno oo tira koob markii la sameeyay مثلا هدي أن إسبر بردقنا مثلا 2001 كي صباحي محو شيء إن المسلمين تودن كان كنول أي سدح جرى كبدينهن ذاتك كلا أو ودن كان يماذا أي واحد كلش ودن كان وقرت إن رنتي إن هل كان وحال غير هذا إن مركي لقاها اللي tirada ama runtii dhalmada one is not enough, two is way too many. Marka annaga for us 3 is too little. 3 waa aad ay noogu yar yihiin marka adigu hal waa macnaha qofka kuma filna laba markay noqotana waxa weeyaan xadkii waa ka baxday marka macnaha waxay ku soo ururaysaa hal marka alxamdulillah dad islaam aan nahay dad mana controlna waxa ilaahay uu nasiinaya risqigiisa iyo meel kastaba ilaaha qool qaaday waxani laakiin gaaladan si kale u fikiraan oo iskuulkooda kama bixi karna yiraahdaan ama cunadooda kama bixi karna ilaahayna quraankiisa ku cadeey نحن نرزقهم وإياكم ما الكلام محولي نحن نرزقكم وإياهم مركا لبض الجرب متقانا إله أي رزق جودة كان يهدي المها يسيبتان واقرت ujeedada aan runtii ka leenahay Dr. Thabit inaan su'aalahan asaasiga ah ama runtii aan hordhac uga dhigayna barnaamijkeena madasha dhalinyarada waxa weeyaan dhalinyarada runtii waxa weeyaan mas'uuliyad weyn baa waxa ka saaran tahay waalidka iyo madaxda jaaliyadda iyo isku duub si guud ahaan dadka Soomaaliyeed halkan degan inta badan waxa la maqlaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo la dilay qaarkood dilkooda ay ka qayb qaateen dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed qaar in xabsiyada ay ku jiraan qaar waliba kaysaskoodii ama runtii dacwooyinkoodii aan loo helin qofkii markaa wax dilay marka mas'uuliyaddan maadaama adigu muddo dheer 20 sano ka shaqeynaysay arrimaha bulshada gaar ahaan aad u adeegaysay jaaliyadda Soomaaliyeed مسؤولية ugu horeysa dhalinyaro markay noqoto yaa iskale markuu ugu horeyso waalidka
caruurta dhalay mas-uuliyad weyn ayaa ka saaran caruurtooda inay ka warhayaan mar kastaba. marka jaaliyadda haddii isku duuban tahay ayagana wax way ka qaban karaan, laakiin mas-uuliyadda ugu horeyso maxay saaran tahay reerkii dhalay, aabbihii iyo hooyihii iyo dadkii qaraabada ay ahaayeen, in ay ilaahay laftigiisa muxuu ku yiri quraankiisa quu anfusakum wa ahliikum naara. marka inaad ka ilaalino waxa qaladyada ay galayaan caruurtoo dhan waa waajib naga wada saaran caruurteena. waxaan u aragnaa inay mustaqbalkooda iyo waxbarashadooda in aan mar kastaba diyaar u nahay oo aan mas-uuliyadaas aan qaadnaa. xusnul khuluq waa in lagu tarbiyeeyo caruurta laftigood mataqaanaa oo wadankan ama aan keenay ama ku dhashayba inta. marka waa mas-uuliyadna wada saaran, waxay saaran tahay kii waxbarayay, kii masaajidka joogay, kii wixii dhalay iyo wixii mas-uulka ah oo majaaliyadda mathilaya halkan inay u sameeyaan wax oo ka fogeynaya dhibaatada ay la kulmayaan ama xabis geynaya. maalan hadday tahay madrasada iskuulkii in la geeyo, markay kasoo baxaanna barnaamijyo loo helo, waxaasoo dhan waa mas-uuliyad dadoo dhan ka wada saaran tahay. laakiin guriga tarbiyadooda hooyadana maxaa ka saaran inay cunuga ay ogsoon tahay meeshuu uu ku sugan yahay, iyuu saaxiib leeyahay, xagoo ka hoyday, dadaa iska maqan 3 maalmood aanan gurigooda kusoo noqonay, ilmo yar oo 16 jir 17 jir aanan la ogeyn cidda ay saaxiib leeyihiin. qalad weyn waayo in la ogaado. hooyada xitaa ay isku dayday inay ogaato iyadoona privacygiisa aanan wax u dhimin, inay ogaato qolkiisa haddii ay galayso ama soo nadiifinayso, inay ogaato waxa ku hoos jira joodariga, waxa jeebabkiisa ku jira, inay fatashto. waa si ay u badbaadiso dhibaatada oo cunugaa keensan karaya. haddii aad ku aragtaa mataqaana cunugaadoon shaqaynin ama iskuul kaliya ku aado ee lacag haysta, waa inaad weydiisaa xaggee lacagtan ay ka soo gashay. haddii aad ku aragtaa wax qalad ah ama hub uu haysto, waxaasoo dhan waa in aad la shaqaysataa oo la fariisataa, aad ka badbaadisaa dhibaatada oo la imaanaya. waa garta wixii markaasi dhibaato bulshada ku ana inay markaas iyadu ay la xiriirayso ciidamada amniga. waa tahay doctor Thabit, runtii markaa fiiriso dhibaatooyinka inta badan dadku ay sheegaan waxaa ka mid ah waalidiinta iyo caruurta markii la fiiriyo ama dhalinyarada doctor markaan niraahno xagga luqadda markaad fiiriso xiriir badan ma jira waalidka iyo dhalinyarada. taa laftigeeda la is oran karaa dhibaatooyinka dhalinyarada halkan ku haysta ayaga iyo waalidkiiba xiriir ma laha, oo dad sheekaysanaya oo maalintii oo dhan markii guriga la isugu wada yimaado saacad inta isku helo markaa maalintaas oo dhan wixii markaas nin walba uu dibadda kala soo kulmay uu ka warramo. waa mid meesha ku jirta. marka ugu horeyso caruurteenna halkan ku dhashay ama ayagoo yar la keenay, waxaa u sahlan luqada ingiriiska inay ku hadlaan. hooyooyinkana mataqaanaa way wanaagsan tahay caruurtooda in af Soomaaliga kula hadlaan ayagoonan qasbaynin, laakiin communication gap ayaa jiro. ama yarkii oona af Soomaali si fiican ugu hadli karin, ama hooyada af Ingiriis si fiican aynu ugu hadli karin, ama waalidka ama aan iraahdo aabba iyo hooyaba waa loo wada siman yahay mataqaanaa tarbiyada caruurta. siiba waalidka aabbaha ah waa inuu aad uga muuqdaa guriga oo la sheekaysan karaayo waxa iskuulkiisa ah iyo wixii oo magaalada yarkaas oo dhan. aabbaha haddooba wiil yahay, aabbaha waa loo baahan yahay inuu ka muuqdo guriga mar kastaba, uuna meelo kale uuna waqtigiisa ku dhumin. marka maxaan ka wadaa communication gap wuu jiraa labada dhinacba mataqaanaa. yaryarkiina aan fahmaynin aabbihii, ama dhaqan ahaan mataqaanaa ayna yaryarkiina dhaqankii hooyo ayna fahmaynin. marka waxaa loo baahan yahay in laysu dul qaato, haddana waqti laysa siiyo, aan lagu daynin hooyada kaliya in ay caruurta ama isbitaal ay geysa ama iskuul ay geysa ama ay kasoo celisaa. in family united isla wada joogo. annaga dhibaatada badanaa na haysata maxaa weeyaan aabbihii iyo hooyadii inay ama labadaba guriga ayna joogin ama ay ka maqan yihiin, hadduu joogana aanuna ka muuqanin mataqaanaa. marka inayna meesha caruurtii ayna ka warhayninba waxay samaynayaan. oo iskuulkii maalan iskuulkii dhaqan ahaan wadanka ka nimid annaga markaan yaryareen iskuulkaana loo diri jiray, aabba iyo hooyo maxaan u ahaa macalinka ayaa wax ku bari jiray. haddeer inta mas-uuliyaddii aabba iyo hooyo ayaa dib loogu soo celinayaa.
wax buu kusoo akhrinayaa, buugtii soo wada siinayaa. waa inay hooyadii ama aabihii ay ka saacidaan. habkii waxbarashada waa kala duwan tahay. habkii waxbarashada ayaa kala duwan oo mataqaanaa adiga laakiin horumar ahaan haddii la fiiriyo dhulkan galbeedka hadda aan ku noolnahay iyo Soomaaliya waagii hore waxbarashada dadku inta badan waxa ay dhihi jireen waagii hore ayay runtii waxbarashadu ay ka fiicneed ama ka adkeydba. waa sax, waayo mataqaanaa macalinka ayaa u soo jeeday in caruurtii dantoodii inuu ilaaliyo. halkan mushaahar ayay u yimaadaan, wixii waajib ayay siinayaan, waa looga kala tagayaa. marka wax Google la yiraahdo ayaa caruurtii lagu daynayaa inay wax kasta soo Google gareeyaan, ay computerkaas ay galaan. birigaan anaga ardayda aan ahayn xisaabta gacanta koranka wada naqiinay. hadda nin oo jaamacadda ku jiro ayaad arkaysaa haddaad tiraahdo 12 markaasuu la soo baxaya calculatorka 12 saddex ku dhuf haddaad tiraahdo calculator oo la soo baxaya asoo engineering baranaya oo majorkiisa math uu yahay, laakiin still inuu computerkaas uu fariisto marka wax kasta su'aal kasta oo aad weydiisaa maxaa macallin la yiraahdo Google ayaa soo baxay, ayaad gelinaysaa. haddii ay arrin diini ay tahay, haddii ay tahay legal, haddii ay tahay medicine, wax kasta ma taqaanaa dhabarkaa laga hayaa, dawadee u wanaagsan dawo bay ku soo qorayaan. marka Google ayaa wixii wada kharibay oo maanta jawaabtu bixiyana waa jawaab aan sax ahayn badanaa ma taqaanaa, waayo inay wax ku dhibtaaba suuroodo taqaanaa. marka birigi hore laakiin maskaxdii ayaa develop gareynaysay. maxaan xasuusanaa telefoonna koranka wada haynay. haddeer kan gurigayga iyo kan caruurtayda ayaan aqoonin inaan aan telefoonka ka dhex raadiyo inaan ku xareeyo aan magac ku qorto ma ogiye, waayo kumaba qasbanid inaad xasuusataa nambarkii. marka memorygii ayaa sii yaraanayo, waqtigeedii ma aha, dhibaato ayaa soo jeeda. wadankii aan ka nimid markaad u fiirisaa magaaladana loogu dayn jiray, qof kastoo tuuladaas degan ayaa mas-uulka ahaa. villagekaas dadka ku nool oo dhan ayaa mas-uul ka ahaa, ayaa ilaalinaya. adigoo webiga kusoo dabaalanay sidaa laga yaabaa inuu kusoo arkaa qof oo marka kusoo garaaco ku yiraahdo webiga wuu buuxaa ama waad ku dhiman kartaa, orodoo guriga tag. anigii aabbana uma dacwoon kari, hooyana uma dacwoon kari, in laysi ciqaabo ayaan ka baqayaa. marka qof kastoo magaalada ila deganaa ayaa abti iyo adeer iyo qaraabo ii ahaa. marka dadoo dhan ayaa ku ilaalinaya. halkan wax jidka oo dabaqa kaasi tuura ma ogiye, wax oo haddii aad wax kasta meesha ku sameeyay saasaa lagu fiirinaya, shaqo kuma leeyihiin ay ku leeyihiin. waa kii dariskaaga ahaa. annaga islamically ma taqaanaa waa in aan iska warhaynaa dariskaaga iyo wixii oo dhan. waa gartay Dr. Maxamed Taabid caruurta ama dhalinyarada Soomaaliyeed wadankan degan dhalashada wadankan Canada haysta, markaad fiiriso inta badan waxa la sheegay waxa kamid ah xumaanta, kuwa runtii dambiyada ku dhintay, kuwa xiran, kuwa iyagu waxbarashadooda sii wadan waayay. marka dhinaca kale markaa fiiriso kuwa meeshan horumarka weyn ka sameeyay markii la fiiriyo, haddii la isbarbar dhigo tira ahaan xagee baad adigu isleedahay way u badan tahay? wallahi aan negative markastaba noqon oon dhinaca xun leh aan eegin. dad badan waqtigeeda sabar kaliya ayaa loo baahan yahay. dadkii oo sacrifice soo sameeyay ama dhibaatada ay ku dhacday muxuu ahaa dadka ugu horeeya oo wadankan yimid iyo jiilkii ku xigay ay dhaleen ayaa dhibaatada ay la kulmeen, oo dhaqan ahaan iyo mataqaanaa language-kii iyo luqadii iyo waxaasoo dhan dhibaatadeeda ayaa naysad. haddeer laakiin caruurteennii maxaad arkaysaa way jirtaa boqolyaalo inay xabisyo ku jiraan, laakiin yaan iloobin boqolyaalka kale ee ka soo baxsaday dhibaatadaas oo soo dadaalay, ijtihaad soo sameeyey, ee jaamacaddii ka baxay, shaqooyin fiican helay. marka yaanan ku degdegin mataqaanaa aan fiirino kumayaalka wili jaamacadaha noogu wada jiro oo soo wada bixi doono. laakiin markii la fiiriyo celcelis ahaan xagee la oran karaa numberka waa u badan yahay? aniga maxaa dhinacayga aniga markasta positive ayaan ahay. over 60% ma aragtaa caruurteena successful weyn. laakiin boqolkiiba 40
haddii waa number aad u badan weeyaan waxay ku dhowdahay boqolkiiba nus iyo nus bay ku dhowdahay nus ku dhowdahay mataqaana laakiin ogow maxaa u sababa runtii madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed ee muddo dhowr iyo 20 sanaad ka tirsaneed maanta waxay ahayd boqolkiiba 5 in laga dayriyo qaarkood caruurta xaalad ay ku sugan yihiin inay numberkan soo gaadho maxaa dhacay jaaliyadda madaxdiina jaaliyadda ma lagu daawanay ilaa intan may problemka muxuu ahaa mataqaana horta jiilkii ugu horeeyay oo wadankan yimid annaga kaliya no gaar ma ahe qolo kasta oo wadankan yimaado ma aragtaa dhibaatooyin way la soo kulmaan marka kuwii culayska badan oo ku dhacaya annaga noqonay laakiin insha Allah kuwana ka sii dambeeya ama caruurteena waxay sii dhalaan xoogaa way la qabsanayaan wadanka oo integration wax la yiraahdo ayaa jiro isdhexgalka wadankan ayaa annaga nagu adkaa caruurteena qaarkeennana waan ka xirxirnay maxaan niri dadka waxa ku darsanin guryaheena ayaan ku wada haynay problemkan taas way keenaysaa marka in lagu wada darsoomo oo taasna ma wanaagsan dhaqankeennana wanaagsan dhaqankeena wanaagsan inaan haysano ayagana inaan la qabsano waa waajib naga wada saaran wadanka runtii bulshadan Canadianka ah dadka jaaliyadda Soomaalida runtii si aad ay u soo dhaweeyeen wadankanina waa wadan runtii dad wada u soo wada haajiray aad bayna isku tixgeliyaan qolo walba dhaqankeeda iyo luqadeeda waa lagu tixgeliyaa wax badanna dadku waa ka dhaxeeyaa marka dhalinyarada Soomaalida markii la fiiriyo xagga waxbarashada xilliyada waxbarashada iskuulada la aaday iyo waqtiyo fara badan waxa jira ay haystaan oo firaaqa ah marka ilaa iyo dhowr iyo 20 sano ilaa haatan dadku Soomaalidu hadda waxay degan yihiin ilaa 30 sano 35 sano la degan yahay halkan marka meel park ah ama meelo xadiiqooyin ah oo Soomaalidu ay si gaar u leedahay meelo recreationist ah oo kubadaha lagu ciyaaro kaleeto oo gaar u ah Soomaalida male unfortunately taam ayna dhicin ilaa haddeer way jiraan masaajidyo way jiraan mataqaanaa in hadda ay bilaabanayaan in jaaliyadda ay isku tashato ay meel ka soo wada jeesato waxay u dhici weysay ilaa haddeerna maxaa jiray fiqa ayaan jirin oo kalsooni ay ka dhaxayso jaaliyadda Soomaali kaliya ayaan jirin xitaa oo ururada xitaa isma aaminsaneen dadkina ma aaminsaneen ururada waayo ururada laftigood cunuqabateen ayaa lagu hayay waxay qaban karaan ma ayna jirin haddaadan haysan dhaqaalaheena dadkeena inay sidii jaaliyadaha kale oo wadankan yimid ama Portugiis ha ahaada ama Talyaani ha ahaada ama dad kale ha ahaadane dad lacag la yimid ayay ahaayeen annaga waxaan kaga duwaneen waxaan ahayn dad oo refugee ku yimid qaxooti ahaan ku yimid oo ka soo wada tagay waxay ay haysteen oo ma hanti ha ahaato ama qaar dadkoodii ka soo tagay xaaskoodii iyo caruurtoodii ka soo tagay ayagoo gacmo maran inay wadankan yimaadeen ayay rabaan in dadkii kale ay la wada qabsadaan of course maxaa dhacaya in lagu takooro nin qof wadanka ku cusub oo newcomer ayaa tahay maxaa tahay qof muslim ah maxaa tahay qof afrikaan ah qof oo midab leh ayaa tahay intaasoo dhan waa wax oo negative ku ah waayo wadankani discrimination kama maqna waxaynu joognaa wadan ee sharciyadooda ay wanaagsan yihiin haddii loo fiiriyo adduunka kale markii loo fiiriyo Canada waa meesha uu multicultural isdhexgal iyo bulsho maxaa looga hadlaa dhowr iyo 100 language ayaa magaaladan Toronto looga hadlaa intaasoo dad kala duwan haddaad u fiirisaa magaaladan Toronto boqolkiiba 50 iyo 1 boqolkiiba dibadday kaga dhasheen marka dadkii oo halkan ku dhashay iyo dadka banaanka ku dhashay ayaa ku badan magaaladan Toronto taas maxay ku sheegaysaa in dadoo dhan isugu wada yimaadeen wadankan yaryarkeeni oo inta ku dhashay mudday ku qaadanaysaa si ay ula qabsanayaan hadda maxaad aragtaa dad badan oo dhakhaatiir noqday dad badan oo injineer noqday dad badan oo lawyer noqday ayaa soo wada baxaya marka caruurtan annaga dhalnay aan mas'uul ka nahay mustaqbalkooda qaar maxay u arkaan inay investment ay yihiin caruurta wayna tahay marka aniga haddaan caruurtayda aan soo koriyay si tarbiyo wanaagsan ku soo koriyay maxaan rajaynayaa inay ayagana sidoo kale ii tarbiyayaan markaan da'an gaarno marka waa inaan ku tarbiyaa xusnul khuluq diinteena islaamku waxay na farayso
aan ku xirnaa masaajidyada aan ku xirnaa aan dugsiyada ay bartaan quraankii iyo dhaqankii iyo afkii intaba ay haystaan waa waajib naga wada haysta laakiin ilaa haddeer dowladna kaalmayso ee noo samayso meel aan isugu wada nimaadno aanan masaajidka ahayn ma jirto community way badan yihiin boqolaal kun ayaan ku tirsannahay magaalada Toronto xagga Dr. Tabit dowladda gobolkan Ontario markaad fiiriso dowladdii hore iyo mid hadda jirtaba in muddo runtii waxay diyaar u lahaayeen in runtii maalgelin ay u sameeyaan dhalinyarada mashaariic fara badanna inay diyaar u lahaayeen marka dalabkaasi xagga dowladda ah dadku ma ayagaana qaadan oo gaar ahaan dadka Soomaalida ah mise dadku ayagu runtii ayaga iska daba wareegay oo is haysta oo runtii sidaas ay fursad ku heli wallahi qaladka anaga jaali ahaan dhinaceena waa in mas'uuliyadda aan qaadnaa wixii qalad oo dhinaceena ka dhacayna waa in isu wada sheegnaa hay hadaan ka bilowno qaladka dhinaceena ka dhacay مثلا wadankan maxaa soo maray dawlado kala duwan oo maxaa jiray mar oo NDP ay haysatay mar oo liberalka ay haysteen haddeerna maxaa haysta qolooyinka conservative-ka marka provincially markii loo fiiriyo birigo oo Bob Ray oo NDP da ayuu madax ka ahaa waxaan ka hadlayaa 9kii way jirtay in ay bilaabeen mashaariic tira badan inay dib u soo geliyaan jaaliyadaha cusub oo wadankan imaanaya birigaas maxaa socday xitaa inay nasiyaan dhul weyn ee Soomaalida shan ku yaala school iyo community center inuu complete ayaana loogu talagalay in la sameeyo iyo meel ay Soomaalida ay wada degtaa Soomaalida laftigoodu way isku qabsatay intii arrimahaas ay socotayna dawladdii oo NDP waa laga adkaaday oo maxaa adkaatay tii Mike Harris ayaa soo gashay meesha oo conservative ah markaasay mashaariicdii on the pipe oo jidka ku soo wada jiro oo dhan oo naloo qol qaaday oo dhan in ay kansala ayaa dhacday marka unfortunately taasna way dhacday ayagoo shaki ka qaba mataqaana dadkan mashaariicdan u sameynaa conservative ayaa yimid conservative maxaad ka filanaysaa wixii oo newcomers oo dhan barnaamijkooda dhan ayaa la wada joojiyay ilaa dhibaato laga geliyay xitaa dadkii wadanka imaanayay in la dhiman numberkooda xitaa oo wadankan u soo haajiray waata Dr. Tabit hadaan ku soo noqono barnaamijkeena gaar ahaan qaybtii madasha dhalinyarada oo inta badan aan uga hadlayno maanta arrimaha dhalinyarada dabcan runtii si guudna waa noogu faahfaahisay oo maadaama adigu mas'uuliyiinta jaaliyadda aad kamid ahayd wixii suurtagali waayay sababtay ku suurtagali waayeen wixii suurtagalay mirihii ka dhashay siday noqdeen dhalinyarada hadda runtii ayagu ma qaadanayaan kaalintoodii oo misleedahay in dhalinyarada kuwooda runtii horumarka sameeyay xag waxbarasho dadaalka dheeriga la yimid ayaga laftigooda qaar in madaxda jaaliyadda lagu soo daro oo dhinaca dhalinyarada loo xil saaro waa mid meesha ku jirto mataqaana waa inuu waxani waa tartan loogu jiro mataqaana in mustaqbal fiican wadankan ku wada yeelano haddii aanan kalsooni aan u sameynin yaryarkeena ee annaga aan ku dhaganaano un xukunka mataqaana waa foolxumo nin kasta mataqaana si dimuqraadi waa hay'ad kastoo jirto ama masjid ha ahaado ama iskuul ha ahaado ama community event ha ahaato waa inay yaryarka laga qayb geliyaa ay qaadaan leadership quality in loo dhisaa isla marka markasta waan ku tala jirnay mataqaana in aan kalsooni siinaa yaryarkan ee hooshi ayaga gacantoodii ku maamulaan annagana advisor aan u noqono ama supervisors aan u noqono dhalinyarada haddaan dhinaca hadda kuwa xabsiyada ku jira madaxda jaaliyadda amaba gaar ahaan dad iyagu isxil saaray oo runtii arrintani aad uga daqnaday maadaama qaarkood ay sanooyin badan ku xukuman yihiin ma jirta runtii in lagu booqdo xabsiyada oo laga warqabo barnaamijyadooda waxbarasho iyo waxa ay xabsigu ku hayaan ururada horta dad u qaabilsan badanaa maana arkin laakiin dad isxil qaaday oo ay ka mid yihiin dhalinyaro oo hadda jiro oo u tago masaajid oo soo booqda xabsiyada way jiraan ama xabiska ku yaala Hamilton ha ahaado oo youthka loogu talagalay aniga way dhacday 2 jeer inaan xaggaa u tagnay aan soo aragnay dad Soomaali tira badan oo xaggaa ku nool tira ahaan marka meeqa ahayd ilaa 10 qofood ayaa markaa ku jiray xabiska
xabsiyada way badan yihiin xukuumadda waa kala duwanaayeen xukuumadda way kala ugu duwanayeen badan meeqa sano ka xukumaya ilaa 10 sano dad xukun ayaa jira oo wax dad xabado lagu qabtay oo wax dilay way jiraan dad wax yar dambi yar geystay ayaa jira ayagaasna mataqaanaa u baahan in looyaro fiican loo qabsto waayo mataqaanaa wadankan aan joogno judicial systemka ama xagga nidaamka oo cadaaladda way ku wanaagsan yihiin runtii markii loo fiiriyo maxaa qaldan dhinaca booliiska ayaa dhibaatada ay ka taagan tahay oo ah in ay samaynayaan evidence aanan jirin wax evidence jirayna inay baabi'inayaan dhibaatooyinkaas booliiska ayaa qabo marka booliiska oo magaalada Toronto wadanka Canada oo dhan ma wada lihi laakiin kuwa Toronto iyo ha in dib isugu noqdaan ay saxaan haddii kale mataqaanaa wax uma arka wax ka duwan third world mataqaanaa dadka ku nool booliiskooda iyo booliiska wadankani wax isma dhaamaan runtii booliiska markaa fiiriso magaalooyinka qaarkood dalkan Canada xataa waxaa kamid ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo wadankan dhalashadiisa haysta oo ciidanka booliiska ku jira magaalada ugu badan oo dadka Soomaalidu ay degan tahay waa meelihii ugu soo horeeyay la soo degay haddii xataa tiro ahaan la fiiriyo jaalidaha halkan degan Soomaalida inay ugu badan tahay madowga ilaa haddana ma hayno hal ama laba dhalinyaro Soomaaliyeed oo ciidanka booliiska ka tirsan dhowr jeer way soo jeediyeen inay yiraahdeen Soomaalida ha nooga soo qayb galaan oo askarta iyo waxaas Soomaalida waxay uga cararayaan booliiska waxay rabaan Soomaalida inay isku dhex diraan nin ay askarta ay Soomaali ahaan ay u qaadanayaan waxay rabaan inay u isticmaalaan undercover oo kala maaragta oo booliiskan qarsan ayay u isticmaalayaan aan ka dhaxgal maxdiine askartan ay qaadanayaan maaragta Soomaalida haddii ay askar caadi ay yihiin wax kasta qabanaya laakiin markii jaajuus oo kale lagu qaato inaad ka soo warantaa dadkaaga Soomaalida ama yaryarkii Soomaalida kale aad dhibaato u geysata taas ayaa taa laftigeeda runtii xagga amniga wadanka markaa fiiriso ciidamada aanan iyagu ciidamada sirdoonka waxyaabaha runtii ammaanka laga shaqeeyo kamid tahay haddii qof Soomaaliya uu runtii hagardaamo iyo dhibaato mujtamaca halkan jooga uu la damacsan yahay dabcan waxaa qasaba in ciidanka amniga loo sheego laakiin ciidamada sirdoonkan ayadoo la geli karo ciidamada uniformka booliiska xiran ee banaanka taagan la garan karana maxaa u diidaya maaragtay in dhalinyaradeen ay kamid noqdaan wax u diidaya malaha sharci ahaan maxaa jira mataqaanaa meeshan sharciyo badan ay wadankan soo wada deysteen maxaa lagu leeyahay discrimination wadankan ma ka jiro midabta koor ma jira lagu leeyahay laakiin waa dareemaysaa markaad magaalada ku jirtid ama aad shaqo doonatid markaas ayaa dareemaysaa in lagu midabta kooraya marka way jirtaa mataqaanaa ku dhihi maayaan Soomaaliya tahay lagu qaadan maayo booliiska laakiin inay outreach soo sameeyaan ay yiraahdaan Soomaalida waa kana barnaamij intaas soo qofood ayaa idin haynaa oo askar ka soo qayb gala مثلا maxaan ku simanahay yaryarkeena haddii la xisaabo more than 60% populationkeena waa very youth oo under 25 ayay u badan yihiin more than 60% of our population here marka dadkaasna waa dad aan shaqo haysan dad jaamacada ka wada baxay haddana mataqaanaa booliiskii awood uma laha inay ka qayb galaan oo markii dalbadan ama ma xooganid ama dhirirkaada sida ama xasaas oo kale qiil ayaa lagu helaya lagu hadaad u fiirisid Canada ama magaalada Toronto waxa booliis noqdo maxaa u badan dad cadaan ah oo wada xoog miiran oo intaas mataqaana youth kama aqli badan yaryarkeena laakiin waa discrimination ee aan muuqanin waa tahay Dr. Thabit hadaan u soo noqono dhinaca waxbarashada tan xabsiga waan ka soo baxnay dhinaca waxbarashada runtii ayaduna waxyaabaha aadka looga deeranay waxaa kamid ah dugsiyada sare caruurtu markay ka baxaan dhalinyarada qaar inay runtii ay dhamaystaan aysan horena u socon ama college iyo jaamacadina aysan sii aadin qaarnaba dugsiga sareba aysan dhamaysanba taa iyadu tiro ahaan mid laga deeranayo ma tahay may waxaan u arkaa aniga mataqaanaa yaryarkeena ama
inta awood u heshay inay jaamacada galaan ama iskuulkooda ama waalidka ay daba taagan yihiin si fiican ay uga wada baxeen marka jaamacadda way jirtaa mataqaanaa qaar inay dhibaato kala kulmayaan waayo ma aragtaa dhaqaalay u baahan tahay dhaqaalihii laftigiisa in lagu soo ogolaado ayay u baahan tahay deen badan inaad gashaa hadhow ayaga aad addoon u noqotaana ma aragtaa dhibkeeday leedahay marka waa waajib annaga naga saaran laftigeena in yararkeenna aan ku tala gashano aan wax gelinaa investment aan gelinaa aan waxbarashadooda aan ka taakulaynaa wixii dhaqaale ay u baahan yihiin si ayna addoon ugu noqonin mataqaanaa systemka aan ku noolnahay oo ribada iyo waxaa aan ugu wada joojin deen badan ay qaadanayaan qofaa jaamacadda ka baxay asoo 80,000 oo dollar ayaa lagugu leeyahay markii aad jaamacadda dhammaysatid adigoo negative ah oo 80,000 lagugu leeyahay dhibaatadeeday leedahay mataqaanaa deyntaas bixinteeda iyo stresskeeda ayaa dhibaato ku keenaya waxaa jirta runtii waalidiin Soomaaliyeed oo halkan degan oo caruurtooda waxbarasho caafimaad inay soo bartaan caafimaadka ugu diray dalka China ayadoo halkan laga heli karo maxaa dalka China loogu dirayaa ma dhaqaale ahaan xagga ka jaban inay qofku soo barto in caafimaadka wallahi dhibkeeda ay leedahay markay xagga China ay ka soo baxaan mar labaad in halkan yimaadaan ay imtixaankii u fariistaan imtixaankaasna saa uma sahlana inayna weligood successful ku noqonin ayaa suurada marka dadka dibadda u diraayo inay wax ka soo bartaan maxaa loo qaatay inay halkan ay markay ka baxaan ay awood u helayaan inay ka shaqeystaan laakiin Dr. Thabit qofka markuu cilmiga caafimaadka uu China oo runtii wadamada adduunyada ugu horeeya marka fiirso xagga caafimaadka qofka markuu soo barto haddii halkani ay rabaan inay dib ugu celiyaan oo ay imtixaan ay ka qaadaan maxaa ku jabantaa ما wax kuma jabna laakiin mataqaanaa markii caruurta xagga la geeyo systemka xagga wax looga bartay iyo halkan way kala duwan yihiin haddii language-ka inkastoo uu yaqaano laakiin waa inuu imtixaankaas oo baasaa waa 2 sano ku qaadanaysaa waa runtii luqad wax soo baratay waa laakiin cilmiga lagu weydiinaya laakiin ugu yaraan 2 sano ku qaadanaysaa oo fee tiro badan ayaa jira la bixinaya ilaa 12,000 ayaa dhiibaysaa haddii aad imtixaanka ku baasi waysidna lacagtii way ka dhimanaysaa mar labaad in lacag kala dhiibta ay ku qasbaysaa haddii aad ku guuleysan marka caruur in la iska diro oo dhulkaas la geeyo aanan cidna la joogin oo dhibkeeday leedahay haddii aad cunugii halkan ku hayni weysi haddaad meel kale uuna joogin aad u dirtaan dhibkeeday leedahay waa gartay runtii haddii aan tusaale ahaan u soo qaadano Dr. Thabit adigu laftigaaga dhakhtar ilkaha ahayd meel badan baa ka soo shaqeysa wadamada carabta ah waliba waxaad ka gaartay darajo aad u sareysa laakiin dhulka markaad timid waad badashay xirfadii aad ku shaqeysan jirtay taa waa midan ka hadlaya mataqaana mesela marka halkan timaadid maxaa lagu leeyahay ninka imtixaanka ku galaysa xitaa adiga inaad keensataa oo ilkiisa aad qortaa aad complete job aad u samaysaa shaqo buuxda inaad ka qabataa su'aalaad kale ayaa ku leeyahay maxaa lagu weydiinayaa mesela 22,000 oo lacag ina dhiibtaa si aad imtixaanka u gudubtaa waa 3 imtixaan oo mid oo practic oo yahay aad kursigaada iyo wixii dhan inaad la timaado laga rabay qalabka ku shaqeynaysid inaad soo iibsataa ay tahay ilaa 30,000 ayay kugu kacaysaa mar haddaad specialist aad tahay ama dental surgery aad tahay intaasoo kale ay kugu baxaysaa marka qof intaa lacag la yimaadna ma lehe waa inaad deensataa aad mortgage u gashaa waxbarashadaada runtii practically haddaan ku sameeyo meel habaysan oo anigu ama qof aan saaxiibnahay ama aan meesha aan kiraysto kale horta way wanaagsan tahay laakiin sababaha badan ayaa meesha soo galaya mesela markaan wadankan nimid isma lahayn wadankaanaad joogaysaa 30 sano markaan nimid 30 sano wadankan joogaysaa marna kuma aan fikirin maxaan lahaa 2 sano 3 sano wadankiyaa wanaagsanaan doono dibaad ugu noqon doontaa meeshaas aad ka furanaysaa ciyaadad wan oo dadka aad wax ugu qabataa marka niyadaada markastaba lugaad halkan kaga taagan tahay lugti kalena maxaad la rabtaa inaad Afrikad ku haysatid taa ayaa dhibaatada ahayd midda kale maxaa weeyaan caruur baa halkan kugu dhalay ayagii ayaad risqigooda iyo inaad koriskooda iyo wixii dhan soo wada jeesanaysaa marka qof inuu sacrifice sameeyo ama adiga sameynay sacrifice ama caruurtii ka dhumaysa marka inaad shaqo kasta inaad gashaa danta kugu qasbayso si aadan gacan hoorsanin ama dawladda aadan uga dambeyn waa gartay Dr. Thabit runtii barnaamijkeena madasha dhalinyarada oo ah barnaamij runtii aad u baaxad weyn
aynan kusoo koobi karin hal barnaamij keliya. waxaanan rajaynaynaa mustaqbalka in barnaamijka meesha aan kasii wadno oo aan dhalinyarada dhibaatooyinka halkan ku haysta sida looga samata bixin karo aan ka hadalno xagga waxbarashada iyo dhammaan inta hadda aynu anagu waqti u helin inaan daboolno. gabagabada barnaamijkeena maxaad dhalinyarada usoo jeedinaysaa, waalidiinta iyo guud ahaan jaaliyadaba? jaaliyadda waxaan soo jeedinayaa marka in ay horta isku wada duubnaadaan, ay meel kasoo wada jeestaan. waayo markii mid la wada yahay dowladda laftigeeda way ku dhagaysanaysaa, waxaad oga baahan tahayna waad ka helaysaa. laakiin haddii ay fursad u helaan ay arkaan dadkii inay kala daadsan yihiin oo reero iyo waxa loo kala jabsan yahay, ayagana qaybtooday ka qaadanayaan inay dadka sii kala furfuraan. marka ha isku yimaadaan, meelna ha kasoo wada jeestaan, ha ahaadaan ama jaaliyadaha kuwa oo serviceka u bixiyo communityga, ama ha ahaadaan kuwa kubadaha ciyaaro iyo kuwa masaajidyada. intoo dhan maaqana ha isu wada yimaadaan, meel ha kasoo wada jeestaan. jaaliyo waaxid hadday noqdaanna ogow in ay dowladdan ay dhagaysanayso. haddeer maxaa soo socoto waqti oo doorashadii, haddii ay arkaan dadkan oo kala daadsan oona israacsanayn way ka faa'iideysanayaan. laakiin hadday ogsoon yihiin jaaliyadda ay hal gacan ay tahay, ay weydiisanayso dowladda, waan idin codkeenna waa idin siinayna, laakiin waa inaad adinkana naga warhaysaan, ayagana way ku tixgelinayaan. laakiin yaryarkana maxaan leeyahay, waalidkooda ha ka dambeeyaano, mustaqbalkooda ha fiiriyaano. haddii hadda ay dhibtoodaan, birita ayay guul gaarayaan. waxbarashadooda ha ku dadaalaan, wixii dhibaato u keenaya mustaqbalkoodana ha ka fogaadaan, oo ah ama dagaal ama dadan aqooniniyana wax ku darsanin. waa tahay Dr. Thabit, aad iyo aad u mahadsan tahay. daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan lahow, waxaan mar kale idinkaga mahad celinaynaa sida aad ula socoteen barnaamijkeena madasha dhalinyarada oo maanta uu marti noogu ahaa Dr. Maxamed Saciid Thabit oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed dhowr iyo 20 sano runtii u shaqeynayay, haatanna weli u adeega ummadda Soomaaliyeed ee degan dalkan Canada, gaar ahaan magaalada Toronto. inta barnaamijkeena madasha dhalinyarada aynu mar kale ku kulmi doono, anigoo ah Muxudiin Jaamac. ilaa iyo kulanti dambe, amaana Allah.